war-saxaafadeed ka soo baxay maanta dowlad goboleedka Jubbaland ayaa looga hadlay gaadiid dagaal iyo ciidan ay dowladda federaalka sida ay sheegeen jimcihii shalay ay u daabushay deegaano ka tirsan gobolka Gedo. madaxtooyada Jubbaland waxay ku eedeysay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu weli colaad hurin ka abaabulayo qaybo ka tirsan gobolka Gedo xilli Jubbaland ay isku dayayso ka jawaabidda xaaladda abaareed ee ka taagan gobolkaasi. qoraalka Jubbaland ka soo baxay ayaa lagu yiri waxaa nasiib darro ah in halkii dowladda federaalka doorkii ay ka geysan lahayd in gobolka Gedo oo awalba la ildaranaa xaalad abaareed ay weli ku sii daabulayso hub ciidan iyo weliba gaadiid dagaal. waxay Jubbaland sheegtay inay cadeynayso wixii mas'uuliyad ka dhasha gulufkaas colaadeed uu qof ahaan u yeelan doono madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay noqon doonto mid xadgudub ku ah oo aan weligiis ka harin sida ay Jubbaland qoraalka ku sheegtay. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa gabagabadii war-saxaafadeedkooda waxay ku sheegeen in ummadda Soomaaliyeed iyo saaxiibada caalamka ee Soomaaliya ku wargelinayaan in baaq dhowr jeer ay soo jeediyeen ahaa in colaadaas lagu hor istaago balse laga dhaga furaystay. war-saxaafadeedkan Jubbaland ka soo baxay ayaa ku soo beegmayay xilli madaxweyne Farmaajo uu ku dhawaaqay saacado ka hor in la isugu yimaado shir ay yeelanayaan dowladda dhexe dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir si loo dardargeliyo hanaanka qabashada doorashada Soomaaliya. Xasan Cabdullaahi, warbaahinta Nation.